dilka ay geysteen labada gabdhood ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyo arrimaha baraha bulshada aad kale la iskala dhaxmaraya maxaa ka jira ma Natasha baa dishay gabadha mise waxa dishay cid kale oo labadaba been abuur ayaa laga sameeynaya intaas oo warar dhamaystiran ay idiga haynaa war bixin dhamaystiran saaxiibayaal balse marka hore waxaan niga codsanayaa inaad muuqaalkan la gareyso videoga si la garee soo kalena share garee saaxiib barteena YouTube-ka Cabdalla Deeqsana subscribe dhac ku si wad ku maasantahay saaxiib daawashada muuqaalkan sababtoo saaxiib markaan muuqaal duubayno waxay naga qaadataa waqti badan inaan sawiro soo helo inaan soo kala muuqaalki soo helo inaan xogti soo helo oo soo wareysano iyo inaan duubno oo waqti badan edit gareyno oo sameeyno marka saaxiib wad garan kartaa mararka qaar aynu gaadhaa waqti dambe habeenimada marka walaal waxa soo rafaad ayaan marnaa si aan inagu soo gudbino xoga dhamaystiran wax dib ku farxi kartaan balse saaxiib intaas soo sameeyaa subscribe share iyo like wad mahadsantii saaxiibayaal saaxiib maxaa ka jira inay rasmi rays iyo Natasha ay ku dileen gabadh magaalada Nairobi ee caarigaasi dalka Kenya arrintaas ayaa shalay soo baxday galnimadii dambe taasi oo baraha bulshada xog u qabsatay balse waxay noqotay arintii mid hay rasmi rayski bi ahaan beenisay walo aysan Natasha iyadu wax hadal ah ka soo saarin arintan waxa la beeniyay rasmi rays sidoo kale saaxiibkeeda amba wiilka isku kooxda ahaayeen amba jaarka yihiin ee isaguna Jamaal Dayax ayaa arintaas si weyn u beeniyay oo sheegay inaysan waxba ka jirin oo ay tahay wax been abuur ah laguna in baahinayo iyada oo haydad fadaxaynaya ama nolosheeda ka xun ay baahinayaan rasmi rays ayaa iyaduna sheegtay inay dadka Soomaaliyeed u gafin oo ay ka daayaan been abuurka balse saaxiib markaad videoga dhageysato aniga la hadlay waan dhageystay ee waxa ka muuqday codkii rasmi rays oo sidiisa oo ah dil gabadha ah taasna waxa ay dadku Soomaaliyeed dhamaantood go'aamin inay tahay rasmi rays oo codkeedii codkan yahay hayna marna ka tagnin balse dhinaca kale Natasha ayaa iyadana lagu leeyahay inay gabadha dishay oo gabadhu waxay Soomaalidu u dhigayeen hadalka inay Natasha iyo islaayeen gabadhaas maalmo hore kadibna uu ka duubay wiil Soomaaliyeed amba wiil ku nool magaalada Nairobi oo muuqaal ka duubay markay isleenayeen kadibna wuxuu soo dhigay baraha bulshada in amba wuxuu u geeyay gabadha Natasha taasi oo ku yiri muuqaalkan ayaa sidan lagu jirdilay Natasha ugu dambeyn way xanaaqday kadibna waxa ku ballansan gabadhii gurigeeda waa sida warka ay u dhigayaan dadku saaxiibayaal inkastoo aanu goobjoog ahayn balse sida warka loo dhigayo gurigeeda ay ku ballansan ku saaxiib gurigeeda uu kaalay gurigeeda ayaa maanta in casuumad kulana aan basku imaanaynaay kadib gabadhii guriga ayay imatay gabadha soo kale TikTok ay caan ka ahayd Natasha TikTok caan ka tahay guriga ayay gabadhii imatay kadibna waxa loo geystay shirqool oo wala dilay family-ga oo dhan xataa rasmi rays oo qolahaatay maahina waxa la dilay ayay dadku ay sheegayaan amba ay saadalinayaan family-ga oo dhan ayaa la dilay gabadha ugu dambeyn gabadhii markii la dilayay indhaha ayaa ugu horreyn basbaas ka shween kadibna si xun ayay u garaaceen oo jir dileen marka waxa ka duubay wiil Soomaaliyeed isagoo ayaa muuqaal soo kale ka duubay kii ayaa baraha bulshada qabsaday codkuru wuxuu codkii rasmi rays ay dadka badigood leeyihiin balse saaxiib ma fiicno inaad iska dambaabto oo waxa hubin xataa aad ku dambaabto taasina waxay keenaysaa inaad noqoto beenaale iyo inaad waxa hubin asaga hasho markasta balse markasta waxa diiniyan bas in dhaqan ahaanteena ba fiican inaan shayga aan iska baadhno ama iska hubino marka hore taas ayaa fiican taas ay ku jiraan dambilaanta taas ayaa dadkan ajirnay noogu jira balse saaxiib rasmi rays waxaan leeyahay hadda saaxiib rasmi walaal macaan hadda arinta adkeysanin in ilaahay kaaga dhigo nabad gardaro waxa ku geystay walaalaha Soomaaliyeed ee cid kale oo ku soo dushay maaha bacdu kala maahan waa walaalaha Soomaaliyeed iska dulqaado in ilaahay ruux kaga dhigayaa maxaa la nursan sababtoo ah qofku markuu caan yahay wuxuu kullayba la kulmayaa ceebo fara badan iyo darxmooyin fara badan kuwaas oo in magaciisa in lagu iyo markasta loo taagan yahay wasaqada ogaashan maboy ayaa inta la siiyay qabre sidoo kale la siiyay kiniini iyo balaayo muqaadirada oo dhan ayaa laga soo galay bartiisa Facebook ama Instagram-kiisa live-ka taasoo cod laga duubay isagoo meel joogo sakhraanada ay ka muuqato rasmina sidoo kale muuqaal haysan ciidba hubin ayaa ugu hor iyo markiiba la yiri waa rasmi rays balse saaxiib ana ku dambaabay in rasmi tahay balse waxa laga warado sugayaa waxay tahay ama dadka Soomaaliyeed u dhigtaagayaan marka ay gabadhu koomada ka soo laabato ee dhakhtarka ka soo baxdo dabcan gabadhu kooma ay waqti ugu jirtaa in waxa la isbitaal ku yaal xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kaasi oo lagu dabiibayo waqtigan xaadirkan xaaladda caafimaad balse marka ay soo kacdo ay sheegi doonto cid kasta oo dishay amba cid kasta oo ka dambeysay dilkeeda wala ay jiraan muuqaalo la sheegay inay ka baahiyeen dad u dhow kuwaas oo iyada iska dhigay balse iyada hasan ahayn walina iyadu kooma ay ku jirtaa wasaan il xogaal ku haynay waqti dhow ayaa la hadlaynay ama wareysi dhaba ka qaadanay dad ku sugan magaalada Nairobi caasimadda Kenya
markaas saaxiibayaal wax ka jira ma lahan inay gabadhu iyadu leef soo gashay Hairspring maahana tiri balse iyadu waxa ku jirtaa kooma dhakhtarka ayayna taalaa walo waqtigan la sheegay inay koomiye ka soo laadanayso insha Allah in markaas ay soo laabto ay wax bino cadin doontaa Jamaal Dayax oo isagu xogaa lahaa waxa uu sheegay inay Hairspring ahayn oo ay tahay cid kale waxa muuqaalka dilay muuqaalkuna uu sahaa mar hore oo san maanta ahayn Natasha laakiin iyadu in soo kale rasmi way beenisay yana ka tagine oo waxay tiri arrinta wax ka jiraan anigana ma ahan balse Natasha oo aad arrintii markii dambe farta looga goday inay tahay iyada iyo familigeeda وسان codkii ahayn Hairspring oo yahay cod kale oo iyada familiga kamid ah ayaana wali iyadu wax hadal ka soo saaray taasina dabcan waxay bixisay shaki badan oo la qabo inay Natasha geysatay dilkan kadibna ay ka aamusantay Natasha waa gabadh iska inta badan hadal badnayn barta TikTok-na aad caan uga ah walo waqti dambe ay samaystay YouTube waxayna inta badan wax wada dumaa Samiixa Qaliil iyo hablo badan oo iyaguna barta TikTok-ga si weyn caan uga ah balse saaxiib ma aqaan anu arrintan aan base jawaab sax ka bixi karo sababtoo ah arrintu waxay noqotay dhagax ku jiid ama bad dhagax lagu tuuray taasi oo qasan gabi ahaanteedaba saacadaha soo socda ayaan rajaynaynaa inay kasoo kordhi doonaan ama kasoo bixi doonaan faahfaahin lagu kalsoon yahay taasi oo ay dadka Soomaaliyeed ku qanci doonaan wali u dhagtaagayaan warka kasoo bixi doona gabadha marka ay dhakhtar ka soo laabato balse saaxiib adigaaga muuqaalka daawanaya maxay kula tahay ma rasmi ma mise waa been abuur kale muuqaalkana like saar bakan video saaxiib sida codka ku soo yartay Jamaal Dayax waxa uu beeniyay arrintaas inay wax ka jiraan balse dhinaca kale waxa la sheegay gabadha muuqaalka laga duubay inay gabadhan tahay iyadoo oo barta left-ka ay gabadhan waxay soo gashay leefka ay ku leedahay Instagram-ka in waxayna sheegtay inay iyada ahayd gabadha muuqaalka in laga duubay dilka ah taasina ay muddo hore oo bishii hore adugu dabeeqadeedii waqtigaas taasina ay dhaacyo loo geystay balse aysan rasmi iyo cid kale dilin waqti xadarkan aysan ahayn waxay soo kale u amaliyay oo mahad celisay rasmi iyo amba ay karaal gelisay rasmi iyo Natasha waxyaalihii eraygeed xumada lagu yiri soo kale waxay muddo Soomaaliyeed ka codsatay inaysan sawirkeeda soo qaadan baraha bulshada soo dhigin sababtoo ah way tiri waxa ay soo weerarisay amba markasta ay soo wacay oo aad ugu ururiyay arrinteeda hooyada iyo aabaha ama familigayga taasoo leh xagee lagu dilay ama xagee lagu jirtay maxaa Nairobi ka doontay taasina waxay noqotay tiri dib laakiinse Nairobi in ma joogo waxaan joogaa ayay tiri Muqdisho Natasha iyo Samiixa Qaliil Natasha iyo han idhaahday Hairspring isma naqaano isma aragnay kaliya waxaan iska qanaabay social media ka arkaa wax qoon oo malihi wax dilna iimaysa kaysan arrintan hadii ay gabadhan iyada tahayna waxay tahay waa mid labaad oo iyaduna in saaxiib yaal han qaybtii hore ka soo idinku soo xisin taasna waxay noqonaysaa mid kale oo labaad oo beenis inay arrintan Hairspring ay wax dishay in base in lama hubo oo inay rasmi ay gabadhan kala adeegsatay oo hay iyadu sidii gabadh kale cod oo sameey cod amba video soo galo waa aniga dhee si aan ceebtu iga baxdo laga yaabaa in dad kale adeegsadaan si Sharma Boy oo kale loo adeegsaday qabrayda laga dhargiyay wax kastana loogu ardaasiyay taasina wadi kartaa balse wali ma caddo oo wax cad ma jiro balse dadka ila xogaal waxay leeyihiin gabadh waxay ku jirtaa isbitaal ku yaala in xaafadda ee magaalada Nairobi taasna marka ay soo komaak soo noqoto la sugayo balse arrimuhu waa iskhilaafsan gib ahaanteedba inkastoo dadkii Soomaaliyeed walaahi run ahaantii hawmid walba reviews qura raadinayo oo sheegayeen wax xaqiiqada ah balse hadii aan xaqiiqada baadhnay waxaan loo sheegay ama ugu dambeyn loo sheegay inay gabadhu isbitaal ugu jirto dilkii ka soo gaadhay ama indhaha oo si xun basbaas looga shubay cunuhu la qabto la ceejiyay taasoo ay nafta inay ka saaraan ay doonayeen dadka dilay in balse Ilaahay uu wiil u soo diray oo uu ka badbaadiyay in wiilkii xataa isaga laftirkiisa oo halis kale oo inuu la dilo ha ku sigtay balse saaxiib in ku dambaabno wax kasta ma ahan sababtoo ma arkaynin waxaad arkaysid uma lagu wax ka sheeg ee wax kale wax ka sheegin in taas ayaa dambi la'aanta ah sababtoo dambi Soomaali ayaan u nahay kulley Soomaali inako aan boqolkiiba muslim ah haddana waxa badan beenta propaganda iyo wax kasta oo Soomaalidu iska ornayso iska fiirsanayeen taasina waxa ay qorsay Soomaalidu inay wax kasta ay afkeeda la gasho amba ay ka tiraado